wax uga ogaado halka uu marayo hawsha dib loogu dhisayo oo inta badan howlwadeennada halkan ka shaqeynaya ay sheegeen in bilaha fooda lagu soo hayo uu dib u shaqeyn doono. isuduwaha shaqada barnaamijka isxilqaan Maryan Aadan Amiin ayaa sheegtay in inta badan dhismayaashan lagu dhisay wajiga koowaad ee barnaamijka isxilqaan uu hadda gabagaba ku dhow yahay. Wallahi waa faraxsanahay maanta iyo maalmo kale horeba waxa kormeer noogu yimid madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudan Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wuxuu soo kormeeray fayska koowaad dhowrka meel ee ka socota haday yihiin taalooyinka haday yihiin maktabadda haday tahay tiyaatarka haduu yahay madxafka oo gabagaba ku dhow boqolkiiba aan dhigi karo 80 way dhamaatay qaar boqolkiiba 60 qaar way dhamaatay 40 kaliya hartay madaxweynaha aad iyo ugu farxay hawsha meesha ka socoto. madaxweynaha dalka Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa uga mahad celiyay qaybaha kala duwan ee bulshada ka soo qayb galay barnaamijkan isxilqaan waxaana uu ku booriyay bulshada Soomaaliyeed inay tabar iyo taagba isugu geeyaan sidii Soomaaliya dib loogu dhisi lahaa gaar ahaan loo soo celin lahaa bilicdii ay lahaan jirtay magaalada Muqdisho. hawshan wanaagsan ay haysan waa hawl runtii mustaqbalka caruurteen wax u taraysa kulligeenba waana wax idinkeeda ka bilowday waana waxa wadankan hore loogu dhisay aanu dib ugu dhisayno marka annagoon cidna sugin shisheeye aan raadsan inaan anagu dib u dhisano oo qof alla qof kasta oo Soomaali wuxuu gelin karo waqti xoog xoolo inaan gashano meeshaan waxaan rajaynayaa insha Allah maxaan ku raadin maktabadan